Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Baro Chemistry. Ashirkeena maanta waxaan ka bilaabaynaa sigma boundaries and B boundaries. Dhammaan inta ku tahan kanaalka Baro Chemistry waxaan ka codsanayaa inay share dhahan, like saaran, subscribe na ay saaran inshallah. Okay, single bound calaamadiisu sidaas waaye, sidaas loo qoraa, waana dabarada marka ay yihiin mid waxay sameeyaan hal sigma. Haddii dabarku uu yahay double bound, dabar lamaana hal wuxuu noqonayaa sigma, halna wuxuu noqonayaa B, 1 sigma plus 1 B. Haddii dabarku uu yahay triple bound, wuxuu noqonayaa hal sigma iyo 2 B ama 2 by 1 sigma plus 2 B. Sigma boundaries. What are sigma boundaries? Maxaa la yiraahdaa ama waa maxay sigma bound? Sigma boundaries are boundaries. Sigma boundaries waxay yihiin dabarada made ay sameeyaan with hybridized orbitals. Heertamaraha iska dhalka ah dabarada ay sameeyaan waxaa loo yaqaanaa sigma boundaries. What are B boundaries? B boundaries maxaa la dhahaa dabarada loo yaqaano B boundaries? B boundaries are boundaries made waa dabarada ay sameeyaan with unhybridized B orbitals. Dabarada aan iska dhalka ahayn unhybridized ee B ah dabarada ay sameeyaan waxaa loo yaqaanaa B boundaries or bi boundaries. How to find sigma and B boundaries? Sidee loo raadiyaa ama sidee loo soo saaraa B boundaries? Example number 1. Tusaalaha koowaad, find soo raadi ama soo hel the number of sigma and bi boundaries for this structure. Structure-kii waa kan hoos ku qoran solution xallin. Structure-kan wuxuu u qoran yahay condensed structure. Condensed structure. Okay, markaan ka shaqaynayno waan furfuraynaa, waxaan u qoraynaa expanded formula ama expanded structure. Macnaha kaarboon walba inta hydrogen oo ku dhagan ku dhajinaynaa. Kaarboonkan waxaa ku dhagan 3 hydrogen, kaarboonka waa kan 3 hydrogen ku dhajinay. Kaarboonkan labaad hal hydrogen ku dhagan inta ku dhajinay. Kaarboonkan saddexaad CH3 ku dhagan methyl sidaana u furfurnay. Kaarboonka ugu dambeeya 3 hydrogen ku dhagan waa kan. Hadda waxaan xisaabinaynaa sigma bound iyo bi bound ama B bound. Okay, sigma haddii aan xisaabino kulli sigma ku wada qornay 1 2 3 4 5 inta double bound ka ku jira 6 7 8 9 10 11 12 13 14 waxay noqdeen sigma bound, halna wuxuu noqday bi bound. ashirkeeni intaas uu noogu egyahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.